assalaamu calaykum ma tahay muslim ku dheggan islaamnimadiisa? haa waanahay hagaag waanu kula dagaalamaynaa oo maxaad igula dagaalamaysaan dee diinta wax kasta oo arbushan oo dantayada ah saxaysa ee hagaajinaysa ayaad aaminsan tahay oo aad doonaysa inay waaqaca ka dhaqan gasho oo heedhe sidaad ila dagaalamaysaan oo miyaanu waayaynaa kaartaannu kugula dagaalanno wuxuun baannu kugu eedaynaynaa xuquuqda aadamuhu ku tuntay waa argagixiso ammaanka caalamka halis ku ah iyo waxyaabo la mida kadibna dee waannu kula dagaalamaynaa oo sidee ila dagaalamaysaan dee hub ayaannu kugula dagaalamaynaa gacan looxa ama hadday doonto bir a baannu wax kaaga qabanaynaa oo haddii aad awoodi weydaanna dhaqaale ahaan ayaannu kula dagaalamaynaa oo haddii aad awoodi weydaanna assaxaafa dee afka carrabkayagaannu kaaga ciilbeelaynaa oo waxaasoo dhan maxaad u samaynaysaan markaa dee keliya inaad muslimiin fahansan islaamka oo ku dheggan oo inay dhaqangeliyaan doonaya aad tihiin dooddaas yari waa luuqadda saxaafadeed ama afka siyaasadeed ee qolada gaalada reer galbeedka isku sheegtaa iyo bulshooyinka islaamkaa dhex mara marka luuqadda ama afka caadiga ah ee bulshooyinka loo tarjumo ee sida saxdaa loo sheego barnaamijkani waxa uu daaran yahay maraykanka oo markii uu cudud dagaal ku fashilmay inuu afghanistan ku muquuniyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan uu doonaya inuu dhulka ula simo oo weli dagaalkiisii aanu dhammaanin madaxweynaha maraykanka ee magaciisa la wada xifdisan yahay ayaa go'aan ku soo saaray in la hakiyo dhaqaale gaadhaya $7 bilyan oo bangiga dhexe ee maraykanka yaalay oo ay afghanistan lahayd si aanay xukuumadda daalibaan dhaqaalaheedaas ummaddeeda wax ugu qaban oo aanay danaheeda ugu fushan dowladda afghanistan ee ay bahda daalibaan garwaddo ayaa ku baaqaysa in haddii aanu maraykanku ka noqonin qaraarkaas doqonnimada ah ay dib isula eegi doonaan siyaasadda ay la leeyihiin washington dhaqaalahoodaas hakiska uu maraykan gashadayna uu si walba u yahay xadgudub ka dhana xuquuqda aadamaha iyo xeerarka caalamiga ee adduunkana ay dee dabcan iyagu u dejiyeen hadba waxa caalamiga noqonaya iyo waxaan noqonayna ay iyagu sheegaan afhayeen u hadlayay dalka afghanistan iyo dowladdiisa ayaa leh war anagu 11 sebtembar ee maraykan uu ku wardiyayo wax xidhiidha lama lihin sida uu maraykan ku doodayana in dhaqaalaha bulshada afghanistan uu hakis geliyo oo uu sheego inuu kala badh ka mid a u qaybinayo qoysaskii 11 sebtembar ku waxyooloobay ee maraykanka ahaa annaga waxna khuseeya ma aha waana ku tumasho cad oo shacabka afghanistan ka dhana go'aanka madaxweynahaas maraykankuna waxa uu toos u burinayaa heshiiskii afghanistan iyo maraykan madaxaas maraykanka ayaa toddobaadkii hore saxeexay in dhaqaalahaas $7 bilyan ah kala badh qoysaskaas qaraxii sarahaas mataanaha ku waxyeeloobay la siin doono kala badhka kalena hay-adaha khayriga ee aadaminimada ee afghanistan la siin doono halkaas ah hay-adaha khayriga ah waa albaabka ugu weyn ee ugu saamaynta badan ee gaaladu ay bulshooyinka islaamka ka soo gasho waxaanaan filayaa qof sahanka xogaha saaxiib la soo ahaa inaan qodobkaas loo sharaxaynin afghanistan waxaa la doonayaa in shacabka iyo dowladda haddii fikir ahaan la ysaga hor keeni waayey bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan la ysaga hor keeni waayey in dhaqaale ahaan la ysaga hor keeno oo dowladda daalibaan loo muujiyo mid aan ummadda dhaqaale ahaan u hagaynin iyada oo dhaqaalaheedii sidaas looga xayirayo hadhowna la yidhaahdo diinta islaamka in la isku xukumo waxaa laga qaadayaa faqri iyo gaajo ama dhaqaale burbur amaba diinta islaamka waaqacan lama jaan qaadayso waxaa markiiba qaraarkaas dhan isaga wada raacay shacabka iyo dowladda afghanistan madaxweynihii hore ee afghanistan ee xamiid karazai oo baaq daciifnimo ay ka muuqato diraya ayaana ku baaqay in biden uu qaraarkiisa bal dib u yaro eego oo uu u turo shacabka afghanistan shir saxaafadeed uu aqalkiisa ku qabtayna waxa uu ku leeyahay xamiid karazai dhaqaalaha bangiga dhexe yaallaa ma aha miday dowladita ay doontaba ha ahaato ee iyadu leedahay ee waxa iskale shacabka afghanistan mana aqbalayno go'aanka maraykanka ee ah inuu dhaqaalahayaga isagu ku tasarrufo bulshada afghanistan oo 20 sanaba la ildarray dagaallo ragaadiyeyna halkii uu caalamkuna caawin lahaa in annagii ciqaabo dushana laga sii saaro ma aha mid aadaminimo leh madaxweynahaas maraykankuna waa inuu go'aankiisaas dib u eegaa dhaqaalaha kaydka ee u yaalla afghanistan bangiga dhexe waxa uu gaadhay abril sanadkii hore $9.4 bilyan halka sanadkii 2002 uu ka ahaa $500 milyan dhaqaalaha intaas la-eg ee shacabka afghanistan uu ka gaajoonayo ee isagu uu leeyahay halkaas ayuu yaallaa insaaniyadda iyo aadaminimada naxariista badan ee uu maraykan adduunka ku hogaaminayaana waa inuu kaba sii xanibo
buuni ama khabiir dhaqaale oo la yidhaahdo lutfullah ayaa leh go'aanka maraykanku waa mid ka maran sharcinimo iyo xirfad siyaasadeed oo waa marka koowaad ee dhaqaalahaas ma laha xukuumadda afghanistan cidda ay doontaba ha ahaato xukuumaddaasiye sideeba madaxweynahaas maraykan hantidaas oo dhan sida uu doono ugu maamulan karaa sidoo kale go'aankiisaasi waxa uu u baahan yahay inay maxkamadda federaaliga ahi ansixiso waana aan ku rajo weynahay inay diidi doonto oo go'aanka ninkaasi waa mid siyaasadeed ee ma aha mid dhaqaale haddaba haddii Bidenkaasi sida uu doonayo uu ugu tasarrufo dhaqaalaha shacabka iyo dhaqaalaha Afghanistanba dhibaato weyn ayay la kulmayaan lacagta Afghanistanna hoos ayay aad ugu dhacaysaa bangiga dhexe ee Afghanistanna awoodi maayo inuu jaangooyo qiimaha lacagta Afghanistan waxaan oo dhanna wuxuu Maraykan u samaynayaa inuu shacabka iyo dowladda Afghanistan isku dhufto kuwii calmaaniyiinta sheegan jirayna ay meelahaas kaga buturiyaan diinta islaamka la iskuma xukumi karo oo waaqacan lama jaan qaadayso ama islaamku dhaqaale ummadda uma samaynayo haddiiba la isku dayo inuu xukumo marka lagu yidhahda maxaad u cuskateenna ay la soo boodayaan sawtii daaliban buu ku fashilantay inay waddanka dhaqaale burbur ka saarto waxaa la saadaalinayaa dhaqaale burburka uu doonayo Biden inuu u geysto bulshada Afghanistan in 5 jiil oo soo socda ay la dhibtoon doonaan wow dowladda xorriyadda ilbaxnimada insaaniyadda iyo xuquuqal aadamuhu siyaasaddeeda marka la raaci waayo intaas belidigooda inay samayso ayay diyaar u tahay aadaminimada iyo xuquuqda insaankana ay ku tumato 5 jiil oo isdhalayna ay silic iyo rafaad maraan haddii sida ay doonayso ay u dhaqmi waayaan balse dhanka kale afhayeen ku hadlayay afka xukuumadda Taliban ayaa xusaya in wax kasta oo uu Maraykan sameeyaba aan waxba kaga qaadin Taliban oo 4 bilood gudahood ay ku ururiyeen 400 oo milyan oo dollar oo cashuuro ah shaqaalihii iska magacawnaana ay kala dhimeen mushaaharadii baasharaadda ahaana ay hoos u dhigeen 300 oo kun oo dagaalyahanada amniga ahina ay bilaa mushahar ku shaqeeyaan oo ay dalkooda ciidan ugu yihiin xubno kale oo dowladda ka tirsanina aanay mushahar qaadan Talibanna ay dhaqaale ku filan u hayso si ay howlaheeda u fushato waajibkeeda dowladnimada ay u gudato xubno kale oo ku hadlayay afka shacabka Afghanistan ayaa iyaguna ku andacoonaya in Maraykan uu dhaqaalahaas u dhiibo qaramada midoobay si ay shacabka ugu qaybisaa inay tahay khiyaamo cad oo ka dhana shacabka Afghanistan oo qaramada midoobay dhaqaalahaba badigiisa ay xafiisyadooda iyo baabuurta laangaruusalada ee ay karaysanayaan ku bixinayaan inta xog laga hayo waxa Afghanistan ay dhaqaale kayda haysataa 9 bilyan oo dollar in ka badan 7 ayaa yaala bangiga dhexe ee New York baaqiguna waxay yaaleen Switzerland iyo Germany iyo Imaaraad iyaga oo dahab ahaan u yaala markasta oo dahabku kor u kacana waxay Afghanistan ka faa'iidaa 800 oo milyan oo dollar marka uu caadiga iska yahay dahabka qiimihiisuna 300 oo milyan haddii dhaqaalaha sababo siyaasadeed loo adeegsadana Afghanistan dhaqaale culus ayay khasaaraysaa haddaba bulshada uu sidaas Maraykan u doonayo inuu dhaqaale curyaaminta ugu sameeyo 3.2 milyan oo ubadkooda ayay nafaqa darro haysaa 23 milyan oo rayidka dadka ahina ma yaqaanaan cuntada ay cuni doonaan meesha ay ka iman doonto ee waa qadama dharge haddana dowladda insaaniyadda iyo xorriyadda ee xuquuqda aadamaha ilaalisa waxay doonaysaa inay dhaqaalahooda gacanta sidaas ugu hayso oo aanu shilin ummadaas gaadhin ee ay isku basbeelaan dagaalkii gacanta uu waxba Maraykan kaga qaadi waayay Afghanistan gaajaysiin iyo dhaqaale burburin ayuu isu bedelay ee taana sidaas ula socda wassalaamu calaykum